ورحمة الله مقعي هو عنب maalintan quruxda badan waxaan ugu talagalay ama ugu talagalnay in asxaabteyda la qaybsado samarka waqtigiisa si dhamaanaya ayaan ka faa'iideysanaynaa waa picnic day xagan waxaa noo joogo kabaniistaha weyn cali kaameramankeena asxaabteydii la socda umaaley jacay weli jahar ma noqotee jidma waral hubayse malla cuntay jiidii weli jihaad maysku aragtee jiir durugsanaayo qalbi meel fog kaa jiray riyadii ma jaartee durugsanaayo qalbi meel fog kaa jiray riyadii ma jaartee canabey jacay weli jaar ma noqoteen canabey jacay weli jaar ma noqoteen jiir durugsanaayo qalbi meel fog kaa jiray riyadii ma jaarteen canabe barnaamijkan barnaamijyada hore wuxuu uga duwan yahay waa barnaamij aan ugu talagalay in asxaabteeda la qaato sida channelkayga uga barateen waxay ahayd waxaan uga hadli jiray inta badan cuntada aan cunayna iyo xiriirkeena jirka ka dhaxeeyo soo haddeertaan maanta waxay noqonaysaa waxaan la qaybsanaynaa culture-keena ka hadli doonaa heesihii dhaqanka la qaadi doonaa xagan waxaa noo joogo cali oo heesaha dhaqanka qaado ama heesaha Soomaaliga meeshan quruxda badan aan fadhinaa Niger-ka soo maanta barnaamijkeena dhinacyo badan ayuu aadi doonaa marka waxaan rajeynayaa inaan nagula raaxaysan doontiin mankii igara ayba maqaano السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعيق وحنا علي عثمان عيقة dadka usla joogay cali Soomaalina way igu magacaabaan inta badan waxaan ka dhowahay meelaha dadka Soomaalidu isku yimaadaan midnimada iyo walaaltinimada laga sheekeeyo halkaas aan kaga qayb galaa markaan musiga kamanka maanta waxaan nasiib u yeeshay gabadh dhalin yar oo qurux badan in Canab Ciise oo ku jirta jaamacadda baratana waxaan afka qalaad lagu yiraahdo nooshka lagu yiraahdo earnaring yani waxa weyn cuntada iyo nafaqadooda iyo arrimaha iyada ka heli doonto waxa iyada ku takhasustay marka waxaan nasiib u yeeshay inay maanta halkan igu yeedho si aan uga qayb galo in xaflad kooban oo hablo qurux badan oo dhalin yar ay soo casuumadeysay ama ay yeedhay taasna aniguna ka qayb galay ما ماشي waxaan ku fadhinaa waxa weeyaan 6 gabdhood oo qurux badan iyo 2 nin annaga cidna galad si badan maanta ma jirto ninka kamarada qaadaya suxufigood garanaysin taas aad baan ugu faraxsanahay waxaan arin si yar oo gaara markaan cuntada arkay waxaan aanu Canabay aan aad ula dhacay waxaan yiraahdaa creativity ama creativity markuu qofku yani wax abuura maarta oo cirka ka keeno waxaan ku kor jirin bariis iyo digaag hilib
saxni la saareen arki jirnay imika adigu waxaad saartay caleen qurux badan oo la yaab leh taas horta waa ikow waa markii ugu horreysay nolosheeda taas waxay ku tusaysaa wax yar kaaga sheegaysaa inaad tahay qof yacni wax badan oo cusub soo saari kara oo cuntada ku saabsan tana adaan nooga sheekin doonaa anigu hadalkayga marka intaasaan kusoo gabagabeynaya hadhow heesiya waan isku soo noqonaynaa imikana canabe adigaan kugu wareejiyo adigu maalintaadaas wanaagsanaato xaggan waxaa ka aragtiin cuntadii waa green waa proteinkii waa wax ka maqan ma laha wax walba isku jiro xabad xabad ugama hadlaayo so faa'iidada ay cuntada leedahay xaggan ma lagu soo هذه جر حولها جن هذه جر حولها جن أني جهجن أهاده كادي هين الليل بالي الله وشان يقول المانك انت دي هين الليل بالي الله وشان يقول المانك أني جوان كوجو همية adaan habkaygu hay anigu waan kugu hamiyayaa adaan habkaygu hay umagaagan jeclaysto hablaa kale lama hadlaaye umagaagan jeclaysto hablaa kale lama hadlaaye amada beereeya aniga kolla iga hadhay amada beenaheeya duunkan aniga kolla iga hadhay hahaybin waxaanad helay hawlin naftee halaaga ka dhac hahaybin waxaanad helay hawlin naftee halaaga ka dhac hahaybin waxaanad helay hawli nafte halaaga kada haweenba dhammaan tanaan la hayaa way haweenba dhammaan canabaan la hayaa iherto halbawla goyhiise miyaan kaa hadhi karaa iherto halbawla goyhiise hadiya jeer hawlahaagan anigu heegan u ahaadee intaadii hiili laydbaad hallowshane igu tilmaantee intaadii hiili laydbaad hallowshane igu tilmaantee anigu waan kugu hamiyayaa adaan habkaygu hayo anigu waan kugu hamiyayaa adaan habkaygu hayo asxaabtayda waxaan rabaa wixii su'aale ah weydiin furantaa way weydiin kartiin okay magacayga waa nimco maxay haytooy anigu waxaan aad uga helay alaabtan waxaan ka arkaa digir oo dee dhaqankeena ah maadaama culturekeena ka hadalno iyo alaabo kale soo saaxiibtay waxaan weydiin lahaa alaabtan waxay tahay maadaama maanta aan haysano maalin aan ugu magac darnay inaan uga wada hadalno culturekeeni cuntadii marka waxaan xaggan ku soo sameeyey si aan meesha uga maqnaanin waxyaabaha aan u haysano dhaqanka digir waaye digirtan waa digirta maxaa la dhahaa midda fuulka ah Soomaali maxaa lagu dhahaa beebesha digirtaas ku qaadanayna okay digir aa la dhahaa iyo waxa waaye lowska kala duwan waaye dhowr nooc lowska kala duwan iyo digir hoostan waxaa ka dhigay waa Philadelphia si uu qofka disaar ahaan u dareemi karo korkana wax yar oo syrup ah sidii qofka u macaan marka waxaa ku shiilay aan ku dubay brown sugar magacayga waa Yasmiin Xasan
badan abaayo ku mahadsan tahay janaalkaaga maanta inay iga casuntay adiga gabdhaha walaalahay qurxan iyo ustaadkeena qadiirka Cali Soomaali maanta u jeedaa cuntada noo soo diyaarisay oo quruxda badan oo u jeedaa cunto oo healthy inay tahay oo sokor iyo waxyaalaha saas camal mu jeedi waxaas yani mugu tala gashay ama say tahay inay ii sheegtidaan rajayn lahaa inay sokor wax sokor iyo ku jiro sugar meesha ma yaalaan ها maadaama oo channelkan uu furan yahay in uga hadlo caafimaadka cuntada cunayno inay cunto caafimaad leh noqoto sidaas ayaa waxa ugu tala galay inaan soo bandhigo wax caafimaad leh sidaas ayaa marka dhihi karaa waa Djibouti hadaba Djibouti هليو إيهر لا عيسى إمري ما هايبي واي هيا جعيلي هليو إيهر لا عيسى إمري ما هايبي واي هيا وماغما هوا قبال وجنبو إيقودا أبلا تانو جعلا أيامكو هالماميا وماغما هوا قبال وجنبو إيقودا أبلا تانو جعلا أيامكو هالماميا hawshan qabiyo uqubay gaaro sidii uriga baddo dabaylu halis gashay hawadu way fiicanto caawan hasaawaya way hawadu way fiicanto caawan hasaawaya deegaan arkayo hinqaday xareedeedii higsaday ma hoorine waan hangaday deegaan arkayo hinqaday xareedeedii higsaday ma hoorine waan hangaday haraadkii igama biin hamuuntii waan qabaa indhuhu tay halacsadeen hadhkeedii igu lamaan haraadkii igama biin hamuuntii waan qabaa indhuhu tay halacsadeen hadhkeedii igu lamaan anigu hawshan qabiyo uqubay sidii uriga baddo dabaylu halis gasheen hawadu maanta way fiicanto caawan hasaawaya way hawadu way fiican canabey maan hasaawaya hawadu way fiicanta canabey caawan hasaawaya عنبي waxaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka hadalka lagu khatimayana adiga iskale laakiin waxaad aad ugu mahadsan tahay maanta sida aad noo qaabishay iyo cuntooyinka wanaagsan ee aadna soo hordhigtay iyo gabdhaha quruxda badan leh ee aad soo casuumadaysay iyo meesha quruxda badan ee aadna keentay wuxuu waa qurux loo geeyo aad baad ugu mahadsan tahay imikana ereyga ugu dambeeya ee xafladda lagu xidhayo adiga ale canabey kusoo dhow xaggan ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii aadka u quruxda badnaay maanta aan ku qabannay meeshan quruxda badan waa Bookstars Vanna oo ku taalo Oslo waan u mahad celinayaa dhammaan asxaabtayda quruxda badan ee igala soo qayb gashay barnaamijkan iyo
cali oo noo suurtageliyay barnaamijkan quruxda badan inuu noo sii qurux badnaado iyo kaameramanka maxamed mayow oo aad ugu mahadcelinayo iima suurtageli lahayn fiidiyogan quruxda badan la-aantaada maxamed aad ayaan kugu mahadcelinayaa soo asxaabteeda waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontiin fiidiyogan quruxda badan channelkan insha allah intii ku tixnayd waad ku tixantiin intii igu cusubna haddee ha moogaanina wax badan ayaa ka faa'iidi doontiin soo waxaan rajaynayaa inaa like-ta subscribe ya nasoo follow gareeya aad ayaan idiin salaamayaa daawashadiinan idinkaga mahadcelinayaa